بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناغسان daawadayaal saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad inoo daawanaysaan ba ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayna maama Asli Cabdullaahi oo kamid ah maamooyinka Soomaaliyeed ee ku leh ganacsiyada yaryarka ah xaafadda Morocco ee ay Soomaalida ku badan tahay ee ku taala magaalada Brisbane ee dalka Australia. waxaan furnay maqaayadan 2022 sababta aan u furnay waxay ahayd magaalada Brisbane maqaayad Soomaali oo cunto laga cuno kuma taalo saas darteed aan maqaayada u furnay sida aan community-ga anaka isku xirano aan u noqono muxuu ahaay dad isku xiran oo community ah cuntadana waxa waay dadku isku keentaa والله waxaan ugu kalifay in la furo maadaama oo magaalada anaka aan joogno Brisbane ay maqaayado Soomaali ay lahayn oo dad badan ay rabaan maqaayad Soomaali cunto Soomaali sababtaas darteed aan maqaayadan u furnay Maryan Axmed Aadan oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee leh ganacsiga ayaga u gaarka ah isla mar ahaantaana ay manage gareeyaan ganacsigan wuxuu u fiican yahay dadka waaweyn sida dadka age-keerada dadka NDIS oo kale oo ku jirta commercial cleaning wax la dhaho ku jiraan marka waxyaalo badan aad bulshada u qabani waa adigiyo bulshadina caawinaya shaqadaadina qabsanaa businesskan wax badan baan raadinayay meelo badan aan u galay marka waxa igu caawiyay dad aan friends nahay hadda gaar ahaan magaalada Brisbane aniga franchise-kan kale laakiin franchise-kan waxa igu dhiirigeliyay ilmahaada adoo la jooga shaqadaadina gudan kartaa maadaama aad hooyo tahay wadankan qurbaha waxa ku waxyaalaha ugu fiican aad qabsan karto waxa waa business owner inaad noqotid oo hawshaada adigoo haysta ilmahaadina aad ogaan kartaa maama Timiro Xasan Xuseen oo kamid ah dumarka Soomaaliyeed ee businesska ama ganacsiyada yaryar ama shoobabka ku leh isla magaaladan Brisbane alaabaha maxay waxaan ka keenaa wadamo badan ay kala yimaadaan sida Dubai oo kale Afrika oo meelaha kamid oo kale Jayna oo kale meelo badan ay ka wada yimaadaan wadan walbana waan ka soo qaadanaa Jayna iyo meel waliba meel ay noogu yimaadeen Indonesia meelo badan ay nooga wada yimaadaan alaabta waxaan ku dhiirigelinaa gabdhaha ilmaha yaryarka haysta kuwa dhaxdhaxa haysta inay business-yasaan oo kala furtaan marka nin walbaba wuxuu qaban kara uu ka qayb galo oo business asaga uu gaar ah uu qabsan kara gabar kasta waxaan aaminsanahay inay qabsan karto wax kasta oo business meeshaan oo ilmaheedana ogaan kartaa wallahi dumarka shaqooyin badan ay wadankan ka qabtaan waxa way shaqaystaan ilmaha ka shaqeeyaan ilmahooda yaryar marka waxa waay maamooyinka waa always waxa waay waa mashquulsan yihiin maamooyinka marka waxaan u baaqi lahaa maamooyinka ilmahooda haystaan shaqaystaan dadkoodana soo dhaweeyaan dumarka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka inay shaqaystaan shaqo wadanka way taalaa waxa loo baahan yahay wadanka dib loogu noqdo hadii Ilaahay idmo ciyaalada dib loo ceshto hadii Ilaahay idmo wax dhaqaale iyo adduunyo dib aan u noqon hadii Ilaahay wadankan wadankeeni maahan marka waxaan dhiilay hooyooyinka guriyaha ka soo baxa shaqaysta because ilmaha wadankan joogaan dhaqanka Soomaalida inay bartaan cuntada gurigooda ku cunaan laakiin cuntooyin kale inay jiraan mar walba ay baroon ciyaaraan wayna booking gareystaan waa noo imaadaan annagana waa soo dhaweynaa annagana wayna support gareeyaan annagana waa support gareynaa marka dhalinyarada waa u baahanahay dhalinyarada soo koreys inay noo imaadaan na support gareeyaan annagana aan support gareyno waa wax loo baahan yahay aadaan uga mahadcelinayaa community بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناغسان daawadayaal saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan maanta waxaan joognaa halkan lagu soo bandhigayo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida abadabaaro dhibta ka hortago dhexdhexaadiga dhaqan ma u lahayn asida dhibta dhaqan ma u lahayn hooyo dhiiran oo dhasho koriso dhaqaalaynta dhaqan ma u lahayn asida dhibta dhaqan ma u lahayn abadabaaro dhibta ka hortago dhexdhexaadiga dhaqan ma u lahayn asida dhibta dhaqan ma u lahayn hooyo dhiiran oo dhasho koriso dhaqaalaynta dhaqan ma u lahayn asida dhibta dhaqan ma u lahayn erla dhaafino dhagalay laho isku dheer
halkanna waxaa nagula sugan maama cabdiyo oo ka mid ah maamooyinka hormuudka u ah mar walba ilaalinta dhaqanka Soomaalida isla markaana hawshan kaali weyn ugu jirta sida noo muuqato horteena waxa yaala bunkii oo hadda aad babinaysid bal ka waran hawshan aad haysaan sideed u aragtaan iyo kaalinta aad bulshada ugu jirtaan maanta horta maalinta aan ugu farax badannahay waayo waxaan haynaa dhaqankii iyo wixii aan ku soo kornay ama waalidkaan uu nagu soo barbaariyey annagana si aan ugu sii barbaarinna awlaadannada iyo wixii ay sii dhaleen su'aalo annaga aan isweydiinay arrintan ku timid iyo ilmahannaga oo na weydiiyey wixii annaga dhaqan noo ahay waayo qof walba dhaqankiisa ayuu soo bandhigaa waqtiyaalka loogu talagalay feestooyinka ama bilaha qaaska oo la xuso in yaroo karoonihii uu naga hakimo ogiy waqti walba waan samaynaa ilmahannaga in ay ogaadaan meeshii ka imaadeen nin walba wuxuu yahay iyo wuxuu ku dhaqmi jiray iyo wadankiisa iyo dhaqankiisuu ku faanaa nin qaawanoo qaawanaashadii ku faanaa aad arkaysaa marka adiga kaadi markaas waxaa waaye inaad adduunka u sarraysa markaas isweydiin ma lahan dhaqankaada waayo qof muslimna tahay qof diin haystaa tahay qof dhaqan haystaa tahay marka inaad kaadi soo bandhigto ood meel walba la istaagto ood ilmahaadi ku baraarujirso aad bay muhiim noogu tahay marka halkan soo dhex gashid waxaad dareemaysaa in aad joogto wadankii Soomaaliya marka yaa idin ama qalabkan oo kale sidee ayaad ku hesheen ma jiraan wax wadankii idinkaga yimid waa wax yar oo adiga sida dhiishi iyo dhakalada yar-yarka wadanka ay ka imaadeen laakiin qalabkan oo dufaladan ku sameynayna dalka laga helay ma sha Allah marka rajo noocee ayaad ka qabtaan in aad sii wadaan hawshan noocan oo kala insha Allah bidmillaahi kariim jiilba jiilina nu dhiibno oo annaga hadda waa daalnay gabdhaha yar-yarka ah iskuulka hadda dhameenay iyo kuwa hadda yar-yar dhammaan dunta hadda waa barnaa dufalada waa tusnaasiin u sameeyno ma sha Allah tabaarakallah hadda walaalahay usaasad ogaanaysi weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida halkaana waxaa nala taagan maama Xabiiba Aadan Cali hooyo soo dhawow marka hore gacanta waxaad ku haysaa bahalkan waxaan doonaynaa bal in kan aad haysid iyo agabyadan kale aad sharaxaad guud naga siisid halkan waxaan gacanta ku hayaa xirag marka waa awrta lagu xirtaa markay reerka guurayaan awrta lagu raraa alaabta lagu xirxirtaa oo duntaan waxaa la saartaa miisaska shaaha fadhi carbeedka meesha lagu fariisanayo la saartaa halkaana waxaa weeye gabadhan waxay haysaa masaftan haruur baa ku jiro haruurkaa lagu hagaajistaa oo lagu hadaystaa qashinkaa looga saaraa hiddihii dhaqankan awow ka soo gaarnay ka mid tahay bahashaan waxaa la dhahaa waa dhiil waa hiddihii dhaqankii waa gabdhaha aroosyada waa kubi muxuu ahaay markii la hooyinayo aan lagu sharaxi jiray waay gacanta ku qabsadaan gabadha markii aad suuqa adeega u doonanayso ayaad qudaarta iyo hilibka iyo wixii aad suuqa ugu baahantahay ayaad ku soo qaadanaysaa waa bacdiyo matala annagaa gacantanada ku samaysanay saabaa la yidhaahaa kan haamankana waa lagu ridaa laakiin kan hadda waxaa loogu talagalay ilmaha dhashay markii ay dhashaan dharkooda markii la dhaqa in dharka la saaro uunsigii dabqaadkana hoos laga geliyo si dharkaasaa loogu kululeeyo oo dhar cunuga uu dhar kululoo macnaha waama uu ugu hela saabkan ulihiis xagee ka heshaan ulihiisa dhirtaan ka soo goonsanaa Australia dhirteeda waa laga mahoogaan lugtad qaadaw ama gurigaadad ka goonsan wax dhiban lagu mahayaan marka annagana wax badan oo anfaca waad garanaysaa haamankaan ku ridanaa caagagaan ku ridanaa oo 20 lowga oo awrta ku rarnaa ama dameeraha caanaha lagu ruuxaa waa gambisanaa asagoo ebara dhalkii aan ku unsanaa wax badan oo anfaca shaqada uu qabto waxa weeye ninka geel jiraha ayaa qaato gacanta gashto geelu la jiraa wuu daalay wax yar buu meel ku nasanaa wuu barkadaa barkiyaa la yidhaahaa kan waxa weeye waa cambuuladii waa koronkoraa la yidhaahaa waa galley iyo digir la isku daray waa wixii dalkanaga aan ka bayrano noo baxay kanna waxaa la yidhaahaa
qarsiin ama qaada fandhaalkana la yiraahdaa yar waa kala duwan yihiin kan waa kii weyn oo dheriga looga gurayay kanna waa kii qofka uu ku cunayay tan waa soorti oo xeero ku jirta xeeraa la yiraahdaa taas waa daangadi iyo timirti oo bismillaahi subaxii lagu afbilaabanay iyo cambuuladii oo afilawga ahayd inta waa soorti iyo caanihi midaan wallaahi hadda markaan arka xasuus badanaada ani naftayda wax badan soo xasuuste waa koora la dhahaa aleelna waa la dhahaa iyadoo tan ka weyn darmaa la dhahaa geela boqorkiisa iyadoo waa kala qayb hadda midaan waa midda ugu yaraado aleela la dhahaa kor markii kaaga soo bilaabo iyadoo weyn darmaa la dhahaa oo geela boqorkiisa lagu xiraa waa iyadoo weyn oo sidana ka shanqar weyn markii ay dhadhaxaatoona waa iska koor midana waa aleel aleela la dhahaa middan waa tii ugu yareed waa aleel waa geela lagu raadiyaa